Ku soo dhawaada channelka Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa xagga cryptocurrency-gu iyo Bitcoin-ka maraya maalin kasta. Channelkan waxaa lagu talagalay dadka af Soomaaliya ku hadla adduunka meel kasta ay joogaan. Haddaad channelka ku cusub tahay, like iyo subscribe taabo si qofka lagu faa'iidaysan karo. Maalin kastana video cusub aan soo duubnaa. Aad iyo aad ba mahadsantidiin. Lagu leeyahay maanta Bitcoin James, Bitcoin wuu booday ba lagu leeyahay. And as inflation cools more than expected, Coinbase Q2 earnings and outlook. Marka intan waa imika waa hadal weyn wax lagu leeyahay Bitcoin wuu booday wax kale maaha. Waxaa la filayaa bishii hore oo July reportka waa soo baxay sheegaysa inuu goodska alaabta la iibsada marka dalalka wax laga iibsanayo amba marka dukaamada la keenayo weeraro jabnaatay taasuna wax kale maaha. Dhinaca Ruushka dagaal ka socda baa u ogolaaday inay dooniyaan saabaxaan iminka marka dooniya badan ma saabaxayo lacagga saliidda xagga oilka xagga alaabaha dhan ee waxay doontaa noqotay la kala iibsado bay way sii jabnaadeen beri hore way adkaan wax kale maaha. Dibadda baa la xiro dagaal wax baa socday wali dagaal ku socda laakiin isa la filay uu saara degaya marka imika alaabiba yara imika yara jabay marka wax jabaana dadka marka lacag baa haraysa lacagtana dib ay u gelinayaan crypto amba stocks amba waxba dib u gelinayaan inay si u macaamilaan oo investment u sameeyaan maaragta marka taas waa war fiican marka waan ku sanoon doonaa inta dib aan akhri doonaa laakiin waan maanta haddana inuu chat xagu marayo waxa isbedelay haddana waa maalin kale haddana saan walba sheego hadda channelka ku cusub tahay like iyo subscribe taabo si qofka laga faa'iidaysan karo maalin kasta video cusub aan soo duubnaa aan eegano dhinaca cryptocurrency-ga Bitcoin-ka xagu maraya maalin kasta marka waa nagan haddana Bitcoin waa aragtaan Ethereum waa ka Ethereum-ka 2 waa kan iyo على كل حال يقوض بدن كمان تو ذا جرين واحد وفيعن وكل ما وحوي دوا انفورميشن عصب على الشيء انفليشن كينو سعر الدقيق أو كوست برايس كي لعبت الويب سنين سعر الدقيق أو لعبي يمكن جودز كي بريه هرا لحالين سواد الجليان ذلك يمك أنا غضن أمريكان بيوروب أنا غضن أم بمرغستان غضن كلاوتي لحرب بريه دوت يمك بس في عنو كليب سنية أو مع البترول برايس كي بترول خيرات شبي مع الماركت awaata markaan eegno Bitcoin xaga soo marka shirta lagu heshiiyay xaga soo maanta markuu sareeyay maanta imkaanta soo maraya marka waa up and down sare marna uu kacaya marna waa sida laakiin waxaan tusaysaa inuu yahay inuu steady yahay oo yara comfortable yahay oo sidoo inuu ka yara fiican yahay maaragtay laakiin waxaan filayaa saan sheegay bil kasta wax badma ku kordhiya iminka September ilaa xalay August ilaa iyo March sanadka socda waxaan isleeyahay lacag marba sii kordhaya anigu waxaan isleeyahay next year peak buu noqon doonaa oo cirku maraya markay imika wada galo dadku wada fahmaan marka imika waxaan joognaa imika wali waa very good price wali waa cheap ka waxaan joognaa dhinaca imika laga faa'iideysan lahaa qofkii waxaan interest ku sameynaya inuu akhriyo oo fahmo si uu shaqeynaya aniguna maalin kasta markasta video-gan sameeyo waxaan ku soo qoraa xagga hoose waxaan akhriyo iyo waxaan isticmaalo waan ku soo qoraa si dadka Soomaalida meel kasta ugu joogan uga faa'iideystaan waxaan waa wax barasho wax kale maaha maaragtay wana la kala faa'iideysta marka waanaga chat-ka maanta eegnay wiigi hore waa inaga wiigi waa adkaa uu dhacay haddana laakiin waxaan waa progress haddaan ilaa 18 haddaan hayno bishan waxaan isleeyahay bil kasta inta kadib oo inta uu joogo bil kasta waxa weeyeen waa wax ku kordhiyo adigu 2000 3000 intan horan buu socon doonaa maaragtay ka waa inaga ballan ku noqday meeshii dib akhriina haddana waxa laga Bitcoin and Ethereum rise following a flat inflation reading. The recent CPI report suggested that inflation in the US may have peaked after rising at the fastest pace in 4 decades. marka waxa laga leeyahay inflationkii oo inflation waxa weeye marka alaabtu qaali garowdo oo wax kasta kacaan taana waxay keeni kartaa dagaal waxay keeni kartaa alaabtii oo la waayo alaabtii yaraata meesha aan roob ka deyn oo xisaab bixi waayaan marka waxa kasta oo xun negative oo xagga hawada ama xagga adduunka marka taas inflation ko taas ku xiranta marka alaabta kacaysa marka waxa lagu leeyahay halkan Wednesday indicates the inflation is at 8.5%. marka 8.5% ka haddaan ugu yaraan 7 geeno 0.5 haddaan geeno wax very fiican marka taasuna waxa fiicanaysa Bitcoin iyo stock market-ka iyo calaa kulli xaal wada fiicanaysa si marka alaabtii marka
yara jabto degto marka dadku haystaan lacag bay haystaan oo marka ay dib u gelin karaan aadna doonto stock marketka oo ay iibsan karaan stocks Amazon amba eBay amba adigu combination waaweyn ay iibsan karaan maalgelin u noqon karaan ama Bitcoin iyo cryptocurrency kale Ethereum, Cardano amba Solana bay dib u gelin karaan iyagoo taala laakiin dadku marka haduu qofka haduu lacag u hadho oo laabtanaysa inflation yara hoos u galo dadku lacag bay marka helayaan maaragta marka wax marba aad u fiican marka wana ka hadalnay maanta inflation ka hadalnay iyo xagu Bitcoin mar inuu kacay reportka maalin kasta waan sameynaayo waan wada eegnaa chartka iyo xag wax mariyo sidoo ugu wada faa'iideystay meel kasta ay joogaan like subscribe taabo si qofka waxaan uga faa'iideysan karo maalin kasta video cusub soo dumna aan isla socodsiinaa warka cryptocurrency-ga waa bari waa maatintina wayna bari